الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتا إيو أحبابتا ملكستو أجوكتان. رمضان كريم. إلهي سبحانه وتعالى صومك إيو صلاة عملك صالحة الله نقا أقبله. إلهنا سبحانه وتعالى توفيق دهنا وافجيه waxaan ka hadlaynay furayaasha wax kasta oo inay leeyihiin fura inay leeyihiin. maanta waxaan jeclahay inaan ka hadlo insha Allah taala furaha toosnaantu waa istiqaamada qofku inuu toosnaan leeyahay ilaa uu ka gaaro mustaqbalkii iyo meeshii uu socday oo ah ilaahay idankiis jannada sida uu rajaynayo qof walba oo mu'mina oo uu jecel yahay. إلهي سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. إلهي سبحانه وتعالى وحو أضومه سأمريا إني كنت نادان جدك توصن. إلهي سبحانه وتعالى وحليه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إلهي سبحانه وتعالى وحليه جدكيغي توسنا واكاس ku taagnaada oo ku socda oo ha ka leexanina ilaa aad ka gaartaan ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadiisa iyo raalinimadiisa. rabbi subxaanahu wa tacaala ha nagu sugo jidkaa toosan. laakiin toosnaantaas waxyaalaha fura u ah oo lagu helayo waxa weeye muxaasabatu nafsi nafta oo lala xisaabtamo. إلهي سبحانه وتعالى وحليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قفكو هادو نفتي حسابيو توسنان بو هليا سببتو نفتو waxay u baahan tahay in la toosiyo lala xisaabtamo. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. marka qofku waa inuu naftiisa la xisaabtamo maxaad samaysay 24 saac marka aad soo dhamayso oo caawa aad seexanayso inaad naftaada weydiiso maanta amalka ka dhacay muxuu ahaa ma yahay mid aad ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa u dhawaasho ku kasbanayso ma yahay mid aad ajar ku helayso ma samaysay wax khilaafsan ilaahay subxaanahu wa tacaala sharcigiisii wax khilaafsan miyaa samaysay ganacsigaaga inaad dib u fiiriso maanta kulamadaada inaad dib ugu noqoto sheekooyinkaaga iyo hadalladaada inaad dib ugu noqoto camalkaagii oo dhan maalintaas inaad dib ugu noqoto oo aad fiiriso ma waafaqsan yahay sharciga. haddii uu sharciga waafaqsanaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku waafajiyey sidii diinta ku toosnayd ee sharciga waafaqsanayd alxamdulilahi baad oranaysaa dikriga ilaahay baad ku seexanaysaa maalin cusubna saasay kugu bilaabmaysaa. haddii ay jiraan markaa waxyaalo aan waafaqsanayn sharciga adigaaba naftaada qabanayo naftaada la xisaabtamaye waxa weeye markaa waad ilaahay uga toobad keenaysaa. inta aadan seexan ayaad ilaahay uga toobad keenaysaa. waayo qofka mu'minka ah haddii uu towbadaas ku dhinto wuxuu la mid yahay qof aan dembi lahayn sida xadiiska ku sugan ataa'ibu min adambi kama laa damba lahu. qofkii dembiga yani ka toobad keena waa sida qof aan dembi lahayn. wa ana tawbata tajubu maa qablaha. towbadu waxay dhaqdaa wax allaale iyo wixii ka horeeyey. sida ilaahay subxaanahu wa tacaala acmaal saalixa oo badan ilaahay subxaanahu wa tacaala noo siiyey oo dembiyadeena dhaqaya oo nabigu calayhi salaam sida saxiix muslim ku sugan xadiiska uu yiri as-salawaatu al-khams wa ramadaanu ila ramadaan wal umratu ila al umra wa ramadaanu ila ramadaan mukaffiratun lima baynahunna idha ijtanibat al kaba'ir. yani salawaadka shanta ah ee faralka ah inta u dhaxaysa labada salaadood wixii ka dhacay ilaahay subxaanahu wa tacaala salaada kale marka ay timaado oo aad sidii la rabay u oogto oo jamaacadeeda iyo khushuuceeda iyo waajibaadkeeda aad u dhamaystirto wixii u dhaxayay iyadii salaadii ka horeysay way dhaqaysaa. salaada kale sidaas oo kale salaada shantaba saas way. sidoo kale ramadaan ila ramadaan inta u dhaxaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala dambiga uu ku dhaqaa laba ramadaan inta u dhaxaysa. sidaas oo kale al-umratu ila al-umra umra iyo umra kaleeto inta u dhaxaysa iyadana ilaahay subxaanahu wa tacaala dambiga uu ku dhaqaya. marka wuxuu qofkii helayaa inuu markaa dambigiisii ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga oo uu ka dhaqay uu rabbi subxaanahu wa tacaala la kulmo wuxuuna ka mid noqonayaa addoomaha ilaahay jecel inay la kulmaan. nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan saxiixa
inuu leeyahay man axaba liqaa'a allahi axaba allahu liqaa'ahu qofkii jeclaada ilaahay subxaanahu watacaala kulankiisa ilaahay kulankiisa u jeclaada waman kariha liqaa'a allahi kariha allahu liqaa'ahu qofkii nabcaada ilaahay subxaanahu watacaala kulankiisana ilaahay kulankiisa wuu nacaa maxaa dhacay qofkan marka ay dembi ka horeeyo iyo camal xun ma jeclaanayo ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa inuu yimaado laakiin marka camal saalixa oo wanaagsan oo ilaahay raalli ka yahay oo jecel yahay uu rabbi subxaanahu watacaala ku qaabilo rabbi subxaanahu watacaala wuu jeclaanaya inuu la kulmo marka walaalayaal furaha in uu qofku toosnaanta laazimo waxa weeye inuu naftiisa la xisaabtamo sideedaba adduunka xataa toosnaanta adduunyada wada garan kartaayo shaqaalaha xataa haddii aanu jirin cid la xisaabtamaysa shaqadoodu ma toosnaanayso shaqadooda ma toosnaanayso dadka beerta ka shaqeynaya haddaanu jirin qof dul taagan dadka maarata jid ka shaqeynaya haddaanu jirin qof dul taagan oo la xisaabtamaya dadka xafiis ka shaqeynaya haddaanu jirin qof ka sare oo la xisaabtamaya oo xisaab aanu ogeyn qofka bani aadamkaa sidiisaba wixiisu ma toosnaanayaan saas darteed ayaa naftaadana adiga la rabaa inaad xisaabiso ilaahay subxaana watacaala agtiisa oo raqiib iyo catiid ku ag jooga oo xisaabinaya oo wax walba qoraya adigu naftaada aada u noqoto oo aada la xisaabtanto maxaad samaysa salafkii waxaa jiray qaar maaragtay carabkooda bay ku xiri jireen xarig bay ku xiri jireen sababtu maxay tahay wuxuu leeyahay adigaa lagaa joogsan kari waayo waa in lagu xiraa xabis baad u baahanta yani naftiisu xisaabinaya cumar radia allahu canhu waa kan yihi xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasib yani inta aan idinka laydin xisaabin adigo isxisaabi markaas toosnaan baad helaysaa camalkaagu waa saxaysaa wixii kaa khalaysan xataa maalin walba waa toosinaysaa laakiin haddii aanu qofku naftiisa la xisaabtamin oo naftiisa eedayn oo naftiisa aanu sida taajirka bakhaylka ahy naftiisa ula xisaabtamo shariigiisa ama qofka wax la wadaaga aanu ula xisaabtamin waxa weeye way ku ururaysaa dembiyaduna ku ururayaan camalkiisana waa loo qurxinaya shaydaanku u qurxinaya afaman zuyina lahu suu'u camalihi fara'aahu xasana faina allaha yudilu man yashaa wayahdi man yashaa ilaahay subxaanahu watacala wuxuu le qofka loo qurxiyey camalkiisii xumaa ilaahay camalkeena xun inooma qurxiyo oo qofku waxa weeye inuu cajabiyo camalkiisa oo wanaag un u arko waxay ka mid tahay waxyaalaha lagu halaagsamo nabiga calayhi salatu salaam markii uu waxyaalaha lagu halaagsamo halaathun muhlikaat markii uu sheegay oo waxbay halaagaan wuxuu yihi shuxun mutaac wa hawan mutabac wa icjaabu lmari binafsihi saddexdaas baa lagu halaagsamaa buu yihi nabigu calayhi salatu salaam midi waxa weeye shuxun mutaac waa bakhaylnimo qofku uu adeecayo raacayo aha naftii baa wax ku leedahay bakhaylnimo waxaa bixin waxaa sadaqay adigaa u baahan adigii baa gaajaysan halkaad uga baahanta waxaan iyo waxaan maaratay adigaaba maaratay danahaagii maaratay kaa cadilayihin sidee maaratay ku bixisa waxaas ku marka shuxigaas iyo bakhaylnimadaas oo uu qofkii adeeco iyo hawan mutabaca hawadiisa uu raaco ma raacayo sharciga iyo waxa uu sharcigu ogol yahay ma raacaye wixii naftiisa cajabiso oo ay jeceshahay ayuu raacaya wax walba oo naftaadu jeceshahana ma noqdaan wax sharciga waafaqsan marar badan waxay noqonaysaa wax hawo ah oo aan sharciga waafaqsanayn midda saddexaad oo halaagtana wuxuu yihi wa icjaabu lmari binafsihi qofku inay cajabiso naftiisa aafooyinka ugu daran oo qofka bani aadamka ah asiiba waxa weeye oo cudurada ugu waaweyn ah oo qofku aanu ka soo kici karin oo ka waaqsan karin waxa weeye in camalkiisa loo qurxiyo oo uu wanaag u arko icjaabu lmari binafsihi ama bira'yihi ra'yigiisa iyo taladiisa iyo wixii isaga maarata unbaa la quman soomaalida waxay walba qumanihiisa qoorta ugu jira qumanihiisa yaa qoorta ugu jira yani wixiisa unbaa la toosan waxaana uu qofku ku fiican yahay inuu naftiisa tuhumo oo yiraa war waxaas amaad ku qaldantay waxaas amaanu sax ahayn waxaas amu gaf yahay war meeshaas bal iska hubi waxaas oo isagu naftiisa la xisaabtamo naf la xisaabtanku marka wuxuu keenaa inuu qofku toosnaado keenaa ha istiqaamo u yeesho ilaahay subxaanahu watacaala istiqaamo hana siiyo kuwa naftooda la xisaabtamana rabbi subxaanahu watacaala hanaga dhigo soonka iyo salaada allah naga aqbalo ummadda muslimka meel kastoo joogaan dhibka allah ka dulqaado dhulkooda barwaaqo iyo khayr allah uga dhigo
ilaahay subxaanahu watacaala nabadgelye ha siiyo dhulkeenna soomaaliya gaar ahaan nabadgelyo iyo barwaaqo allah nooga dhigo. ilaahay subxaanahu watacaala khayrka hana waafajiyo. ilaahay subxaanahu watacaala toosnaanta rabbi subxaanahu watacaala hanagu irsaaqo. ilaahay subxaanahu watacaala kuwa khayrka ku dadaala bishaan barakaysan ee ilaahay subxaanahu watacaala leylat lqadriga u waafajiyana allah naga dhigo. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.